السلام عليكم كسو دواده هربت وهويغا tababarka injineerada mustaqbalka aad ka baran kartid cilmiga kombiyuutarka qaybihiisa kala duwan adoo jooga goob kasta iyo goor kasta waxaana naga soo booqan kartaa hurbet.com waxaan rabaa videogan inaan ka hadlo waa maxay LinkedIn profile sideena loo sameystaa LinkedIn profile professional ah LinkedIn profile waa CV-ga casriga ah adduunkan hadda aan ku noolnahay hadii la rabo in adiga lagu shaqo geliyo waxa la fiirinayaa waxay tahay waa online presence-gaaga la fiirinaya oo online-ka profile-ka aad ku leedahay profile-ka professional-ka ah oo online-ka ay ku leeyihiin dadka professional-ka ah oo dhan waa LinkedIn profile sidaa darteed ayaan waxaan rabaa videogan markaad dhameyso inaad haysato professional LinkedIn profile oo adiga macluumaadkaaga ku jiraan soo hadii laga rabo in lagu shaqo geliyo kale ama hadaa adigu aad shaqo raadisto kale aad ama shaqo aad ka dalban karto ama adiga lagu dhihi karo shaqadaas ma rabtaa hadaan adigu hadeertan aan hal mar aan isla tagno profile-ka anigu aan ku leeyahay LinkedIn waxaad arkayba waxay tahay hadaa hadeertan LinkedIn tagto oo meeshan aad magacayga ku qorto Abdulrazak Hersi aad ku qorto okay hadaan magacayga si sax ah u qori karo waaye markaad ku qorto Abdulrazak Hersi waxa ku soo baxaya waxay tahay waa profile-keygii baa ku soo baxaya oo sida aad u jeedid waxaan click ku siinayaa waxay tahay Abdulrazak Hersi oo you ayaa ku qoran meesha sababtoo anigiiba log in ah waxaad arkayba waxay tahay in magacayga meeshan ku qoran yahay iyo magacayga sida loogu dhawaaqo sababtoo ah magacaaga ma ahan qof waliba inuu ku dhawaaqi karo waa inaad sheegtaa magacaaga sida loogu dhawaaqo oo mobile-kaaga ka samayn kartaa waana idin tusi doonaa oo feature-kaas waa isla arki doonaa waxaad meeshan ku qoranayba waxay tahay tagline-kaaga oo anigu waxaan ahaan tagline-gayga aan ku qortay adigu waxa aad tahay baa ku qoran kartaa sida loogu qorto sida loo sameeyo waxaas oo dhan waa isla arki doonaa waxa kale oo sameyn kartaa waxay tahay hoosada u socoto waxa arkayba waxay tahay aniga inaan haysto 7574 followers inaan haysto oo waa ay ka badan doontaa oo markasta dad badan baa maalin kasta isoo codsada waa aan ku darsada aniguna waa aan ku darsan karaa waxaan idin tusi doonaa sida followers iyo dad sida loo follow gareeyo ayaguna they will follow you back markii aad follow dhahdo waxay sameynayaan inay accept dhahan waxa arkayba waxay tahay followers marka waxa jiraba waxay tahay connections soo hadirtan connections hadan click ku siiyo waxa arkayba waxay tahay connections-keyguna inay tahay waa 7400 connections inay tahay hadaa gadaal u laabato marka waxa arkayba waxay tahay hoosada u sii socoto dashboard-keyga aniga waxaanu private yihiin oo qof waliba ma arki karo adiga waan ku tusayaa laakiin waxa ogaataa intaan qaybtan hadeertan qofna ma uu arki karo qaybtan oo dhan hadeertan oo ka kala duwan qaybtaasu qofna ma uu arki karo marka sidaa u jeedid baa waxay tahay profile-keyga waxa la arkay usbuucan ayaa waxay tahay waa 341 jeer baa la arkay postiga aan soo dhigo ugu dambeysay oo maanta aan soo dhigay 82 qof aragtay inta search aan ka soo dhex baxay waa muhiim taasu waxaan rabaa inaan idin tuso inta jeer on ka soo dhex baxay ayada oo shaqo la rabo in qof la siiyo kale ka soo qaad soo hadartan company rabo shaqo inuu qof siiyo shaqo markuu qof siiyo wuxuu raadiyay okay dad yaqaano kale ka soo qaad CCMB level oo kale ah qof ah ka soo qaado kale infrastructure engineer ah oo kale oo experience-gaas leh markuu galiyay automatically 70 jeer aan waxaan ka soo baxay usbuucan kaliya ayadoo dad la rabo in shaqo la siiyo waana qaarkoodna waa la ila soo xiriiro waxaan dhahay ma rabo waa mahadsantiin sababtoo ah shaqo raadis ma aanihin okay waxaan sameyn karaa xataa inaan u sheego dadka employerska ah inaan shaqo raadis ah ayaan u sheegi karaa oo waxaan dhigi karaa waxay tahay meel waxa jirta option aad on ka dhigi kartid hadaad shaqo raadista hoosada u socoto waxa arkayba waxay tahay activities-kayga inta post on soo dhigay soo hadeertan tan waa maanta shalay waa waxaan dhan wax cusub waaye oo aniga ahaanteeda maadaama aan active aan ka ahay social media markii laga hadlayo LinkedIn profile-ka iyo Facebook-ga sababtoo ah business ahaan aan u isticmaalaa anigu personal ahaan ma u isticmaalo social media oo dhan hoos baa u socon kartaa waxa arkayba waxay tahay about me oo sida waxaas dhan loo qoro waxa arkayba waxay tahay experience-ga waxa arkayba waxay tahay education-ka waxa arkayba waxay tahay license iyo certifications-ka aan haysto waxa arkayba waxay tahay inkastaysan dhamaystirnayn oo wax badan wax yar baan geliyay laakiin ma dhamaystirna waxa arkayba waxay tahay skills iyo endorsement waxa arkayba waxay tahay oo waxa laga wadaa waxay tahay xirfadaha aan leeyahay 22 qofood hadda waxay dhaheen qofkaan xirfadan waa uu leeyahay oo hadda aniga endorsement igu sameeyeen intaan qofood marka adiga waxay kugu xiran tahay LinkedIn profile-kaaga inta qof oo endorsement ku sameeyso adiga ku taqaan
waxa arkayba waxay tahay accomplishmentiga oo publicationka qof waliba ma uu geliyo aniga marka maadaama aan ahay markan author oo qof buuga qora qof koorsooyin soo saara waxyaalo badan aan sameeyo ayaan gashtaa wax alla wixii koorso ah oon soo saaray oo aan soo bandhigaa marka qofkii arka publicationka aan sameeyo badana waxaan arkaaba waxay tahay shalaydan waxa ila soo xiriiray qof dhahaya koorsooyinka aad samayso sababta koorsooyinkaanan sameeyay oo arkay waxaan rabnaa inaan gelino website la yiraahdo Hey Brain haddaad booqato Hey Brain mana ahan waxa simple leena ila soo xiriirta kuwa la yiraahdo kuwa badana ila soo xiriiray oo dhahayaan koorsooyinkaaga ma gelin karnaa website ama koorsooyin ma noo abuuri kartaa markasta waxaan idhaahdaa maya classroom training xataa waa la ii soo waca maya idhaahdaa shaqooyin kale waa sababta waxa la arkayaa waxay tahay waxa anigu aan sameeyo ayaa la arkayaa maalin kasta marka waxaan rabaa waxay tahay profile-kan sida aan u sameeyay iyo sida loo samaysto inaan idin wada sharaxo adinkuna saa u samaysiin hortiina aan ku sameeyo waxa arkay waxay tahay luqadaha waxa arkay waxay tahay organizationska waxa arkay waxay tahay waxyaalaha interestiga aan ku waxa soo dhan wada sameyn doona ani adigu oo hadda kor aado hadirtaan picture baa meeshan saaran on ka booday picture-kayga waaye picture professional ah loo baahan yahay waxa jira baa waxay tahay background picture waxaana dhan waa isla sameyn doona sidee marka LinkedIn profile loo sameystaa haddaan hadda aan tago browser haddaan furo hadirtaan oo aan tago hadda ka soo qaado kale Google markaan tago ayaan waxaan sameynayaa LinkedIn ayaan leeyahay dan kadib LinkedIn ayaa ii soo baxaya so wadanka aad joogtay ku xiran tahay aniga uk.linkedin automatically ii soo saaray sababta wuxuu yaqaanaa geolocation meesha markaas aan ku suganahay balse adigu wuxuu ku soo saarayaaba waxay tahay meesha aad markaas joogto waxaad sameynaya marka LinkedIn profile inaad click ku siiso hadirtaan linkiga koowaad marka click ku siiso wuxuu ku geynayaa page-kan haddaadan weliga hore aad u samaysan haddaad hore u samaysatana oo rabto inuu profile-kaaga oo professional noqdana waa ila socon kartaa waxaan sameynayaa marka inaan hadirtaan ilaahdo join now sababtoo ah waxaan iska dhigayaa qof aan weligiis aan gelin waxaan sameynayaa join now inaan ilaahdo sidaa u jeedid marka waxa la yiri make most of your professional life okay waxaan sameynayaa marka inaan hadirtaan aan emailkayga halkaas ku qoro kadibna aan password aan samaysto okay so emailka aan ku qorayo xagaas waa Hurbet sababtoo waxaan ogahay inuu soo ka diiwaan gashnayn @outlook.com waxaan ogahay inuusan ka diiwaan gashnayn emailkaasu LinkedIn-ka inuusan ka diiwaan gashnayn marka emailkaas baa meesha galiyay kadib ayaan waxaan sameeyay inaan passwordkayga xaggaas aan ku qorto aan rabo fadlan emailkaaga iyo passwordka adigu aad rabto inuu ku noqdo passwordkaaga ka dhigo anigu marka password symbol ah ayaan ka dhigtay oo ma ahan password aad u adag hal mar baan iska hubinayaa sababtoo waan ka shakiyay waxa aan qoray okay kadib waxaan sameynayaa agree and join ayaan kili ku siinayaa kadib waxa la leeyahay magacaaga koowaad noo sheeg magacayga koowaad marka waxaan leeyahay okay waxa la yiraahdaa Maahir okay last name-kayguna waa Hersi waxaan sameynayaa marka continue inaan iraahdo okay dan kadib waxa la weydiinayaa security verification ayaa la weydiinayaa marka waxa la leeyahay waxay tahay please solve this puzzle so we know that you are really person waxa la diidayaa waxay tahay bot inay iska diiwaan geliso marka waa inaad solve gareysaa puzzle-kan marka waxaan leeyahay waxay tahay waa verify ayaan leeyahay okay dan kadib waxa la leeyahay the image okay pick an image correct way up hadda xoolahan hadeertaan meeshan midkee taagan oo caadi u taagan ma midkaan baa taagan marka inaad dooratid waa midka taagan soo aniga adiguba hadda bil aadanana waa kula jeednaa midkaas baa taagan aan leeyahay ogaawna adiga midda lagu weydiinayo aniga tala i weydiiyo waa ay ka duwanaan doontaa ogaaw marka waxaan sameynayaaba waxay tahay inaan iraahdo hadirtaan save password inaan iraahdo maadaama aan computerkan aniga kaliya aan isticmaalayo oona rabinin markasta inaan passwordka aan dib u geliyo ayaan save iri adigu haddaad computer lagula isticmaalayo haddaad isticmaalaysid fadlan waxaad tidhahdaa no passwordka dheh anigu laakiin save baan iri waxaa la weydiiyey marka regionka kadib ayaa waxaa la weydiiyey postcode-ka geli kadib waxaa la weydiiyaa waxay tahay areada so regionku waa iyo wadanka ayaad dooran kartaa dan kadib postcode-ka anigu marka hadirtaan postcode-ka waan gelinayaa laakiin waa idinka qari doonaa idinka sababtoo postcode-ka waa meesha aad degan tahay adigu marka adiga wadanka aad joogto ayuu automatically soo qabsanaya so Soomaaliya kale hadaa joogto Soomaaliya soo qabsanaya America kale hadaa joogto America meel alla meesha adduunka aad ka joogto ama Arab joog ama Asia joog ama joog waxa joogta America ama Australia ama Europe Africa meesha rabta joog waad samaysan kartaa profile-ka marka waa inaad gelisaa marka aniga postcode ugu xujeeyay hadirtaan adiga waxa dhici karta bio box inuu ku yiraahdo so hadda waxaan sameynayaa baa waxay tahay okay waxaan rabaa inaan tijaabiyo haddaan iraahdo hadda Soomaaliya kale haddaan iraahdo maxaa dhacay Soomaaliya okay
waa kaasa district ku weydiinaya marka waxa dhigi kartaa Muqdisho oo kale ama saasa dhigi kartaa nagsiya dhigi kartaa lacalla hadii uu ku weydiiyo hadhowtidii hadhiin waxa aad sameeynaysi waa aan sameyn waay marka waxaan sameynayaa waxa taa anigu ina hadirta United Kingdom aan ku laabto kadib aan postcode ka xagaas geliyo anigu aan u baahanahay inay meesha ay ii gasho marka postcode kan waan in ka qarin doonaa ma ahan midaan aan in tusi doono ama waxaan sameynayaa waxay tahay inaan tago hurbad.com aan postcode-ka hurbad.com aan isticmaalo teeda personalka aan isticmaalin hurbad baan tagayaa sababtoo ama rabo in guriga la igu soo gargaraaco ama personal information-kaaga weliga banaanka lama dhigo hoos baan u soconayaa waa midaan waa business so waxaan sameynayaa waxay tahay inaan soo koobiyeeyo inaan korka ka aqaanay ahayd laakiin korka kama aqaano marka waxaan sameynayaa waxay tahay automatically wuxuu ii soo saaray meesha aan joogo waa South Tottenham England ayaa la ii soo saaray marka waxaan sameynayaa waxay tahay next inaan iraahdo next marka iraahdo waxa la leeyahay recent job title marka waxaan sameynayaa waxay tahay inaan iraahdo service desk analyst waa la ii soo saaray waa la ii dhameystiraya service desk analyst employee marka employment type ayaa la weydiinaya marka waxaan leeyahay full time ayaan employment ahaa most recent company marka waxaan leeyahay hurbad ayaan u shaqeeyay fadlan company-ga aad u shaqeysa adigu ka dhigo ha ka dhigin hurbad inaad u shaqeysay tan waa waxaan rabaa waxay tahay inaan idin tuso sida profile-ka loo dhameystirto completely laakiin ma ahan inaa adigu exactly waxaan anigu meesha ku qoray inaad ku qorto waa inaa adigu ku qortaa shaqadaada ugu dambeysay oo qabatay waa inaad ku qortaa company-ga aad u soo shaqeysay okay kadib ayaan waxaan sameyn industry-ga la weydiinaya marka industry-ga waxay u badan tahay adinka hoos inuu inka aado oo arki karinin laakiin waxaan sameynayaa kor inaan inta u wado aan iraahdo computer networking inaan iraahdo hadirtan ama computer network security midkaan rabaan dhigi kara laakiin hadda waxaan leeyahay computer networking ayaan leeyahay ama waxaad dhigi kartaa am student haddii aad qof hadirtan student-ya tahay oo hadda wax baranaya asagii waxaanu inaad buuxiso maahan hoostaan baa waxaa leedahay am student dan kadib waa lagaa gudbinaya anigu marka hadirtan waxaan rabaa sidii qof oo shaqeeyo kale inaan hadirtan profile-kiisa aan abuuro waxaan sameynayaa marka continue qasab maaha industry waxa laga wadaa waxa aad ku shaqeyso soo hadirtan haddaan service desk analyst qofkan wuxuu ku shaqeeyaa waa kombiyuutarada haddaad tahay qof nurse oo kale waxaad dhihi kartaa waxay tahay medical inaad ka shaqeyso ayaa industry-ga dooran kartaa haddaad tahay kasoo qaado kale qof oo ah office ka shaqeeyo kale waxaad dhihi kartaa waxay tahay business ama business administration ayaa dhihi kartaa waxaad dhihi kartaa haddaad tahay qof oo hadirtan ardayo kale maba u baahnidba oo halkan baa ka dooran kartaa waxay ku xiran tahay shaqada adigu aad qabanaysid maahan inaad tan kaliya adigu aad ku ekaato oo aad computer industry aad doorato balse haddii aad tahay qof oo hadda kusoo dhex jira kombiyuutarada oo shaqadaadu ay tahay service desk analyst ama service desk support ama network engineer ama waxay tahay waa dooranaya dan kadib halkan industry-ga waxaa ka dooranaya waa computer networking ama computer security ama aad ka dooranaysaa continue ayaa leedahay fadlan information-ka halkan gelinaysana waa inaad runta ka sheegtaa maahan inaad been ka sheegto information halkan aad gelinaysid marka waxaa lagu yiri emailka waxaa lagu soo diray code so waa emailkaaga inaad gashaa marka waxaan sameynayaa waxay tahay anigu emailkayga log in baan already ku ahay waxaan sameynayaa kaliya waxay tahay refresh inaan iraahdo on sugo saa u jeedid marka LinkedIn waa la ii soo diray code-kaanu marka waa mid aniga ii gooniya waa 18118 waa 198118 so hadda haddaan ku laabto LinkedIn-ka waa 198118 sax ma yahay iska hubinaya 198118 okay hadda maxaan qoray 198118 okay waxaan leeyahay baa waxay tahay waa confirm agree and confirm marka iraahdo ayaa waxa leeyahay are you looking for a new job marka ma shaqo raadis baa tahay waxaan leeyahay waxay tahay not now hadda ma rabo sababta profile-kan raba inaan dhameystiro no ayaan leeyahay dan kadib waxa leeyahay baa waxay tahay dadka emailkaaga kugu jiro already taqaanid import ku dhaho marka adiga hadda dad badan ay kugu jiraan emailka oo taqaanid import ayaa leedahay marka waxaan sameynayaa waxay tahay skip inaan hadda iraahdo sababtoo ma aan rabo skip sababtoo waxaan rabaa inaan idin tuso sida qof loogu darsado manually so hadda waxaa kugu soo baxaya baa waxay tahay sida dadka aad aqoon kartid kugu soo baxaya waxaan sameynayaa marka sababtoo hadda waxaa lagu soo saaraa baa waxay tahay dadka aad isku shaqada tihiin okay ama aad aqoon kartid dadka isku shaqada tiinya waa service desk analyst lagu soo saaray ayaga dhan waa wada service desk analyst fiiriya ayaga dhan haddaad fiiriso service desk analyst aan point fiican raba inaan idin sheego qofkan hadirtaan service desk analyst picture ku saaran yahay picture-kana si loo saaro waa in tusi doona iyo qofkan saddex waxay kala yihiin nooc oo kala duwan waliba haddaa qof company hadduu shaqo raadinayo automatically qofkan koowaad uu dooranaya waayo u dooranaya sababta picture-kiisa clear ah
qofkan hadirtan fiir graduation-kiisa geliyay picture lama geliyo graduation-kaaga picture waxaa la geliyaa wajigaaga oo professional ah oo kamerada aad fiirinaysid qofkan wuxuu hadda geliyay picture ba ma gelin ba qofkaanu so waxay u badan tahay waxay tahay shaqaba inaan la siinin inaan lagu darsanin inuusan qofkaanu oo qof jiraba uusan ahayn sababtoo ah lama oga wuxuu yahay waa inaan marka picture clear aad doorataa so hadda waxaan sameynayaa waxay tahay marka inaan anigu aan isku darsado Abdirazaq waxaan leeyahay Hersi aan ku qorayaa meesha kadib waxaan sameynayaa search hadaan iraahdo Abdirazaq Hersi dad badan oo picture u saarnayna jira mujeda Abdirazaq oo waan soo bixi laa okay Abdirazaq Hersi waa soo bixi laa sababtoo isku shaqaanahay oo isku meelan ka shaqeynaa oo ka wada marka waxaan leeyahay Mohamed Hersi ayaa hadda qorayaa marka asagana waa soo bixi laa sababtoo isku shaqaatiin baa laga wada Abdirazaq Hersi iyo Mahir Hersi isku meel bay ka shaqeeyaan oo hurbad bay ka wada shaqeeyaan balse qof hadaa rabto inaad ku darsato sidaas baa ugu darsan kartaa oo hadirtan example oo kale Abdirazaq Hersi hadaan qoro qofkan koowaad ba maarat ayaan ku darsan karaa waxaan leeyahay connect ayaan leeyahay dan kadib invitation ayaan u soo diray waxaan sameynayaa marka hadirtan inaan skip aan iraado sababtoo si kale loogu darsadan rabaa inaan intuso skip ayaan leeyahay kadib waxaa la leeyahay Mahir Hersi waxaa gelisaaba waxay tahay dadku ku aqoonsadaan footadaada geli waxaadna ogaataa haddii aad footadaada geliso 10% ayay kor aadaa profile-kaaga qiimaha uu leeyahay sababtoo dadkii way ku arki karaan in shaqo lagu siiyana chance-kaaga ayaa aad iyo aad u badanaya marka waxaan sameynayaa waxay tahay aniga hadda waxaan diyaariyay picture-aan diyaariyay baa jira oo raba inaan idin tuso oo Mahir aan already aan u diyaariyay okay waxaan rabaa waxay tahay picture-adan inaan hal mar idin tuso waxaan sameynayaa marka inaan hadirtan aan double click ku siiyo Mahir Hersi picture-kiisa oo aniga picture aan leeyahay ayaan ka dhigay Mahir Hersi Mahirna hadaa rabto inaad ogaato waa wiilkayga waaye marka picture-kan ayaan u isticmaalaya picture-kan waa picture oo photo aan inta tagay aan iska soo qaaday anigu oo professional profile ahaan aan u isticmaalo asagoo nooc kale ah oo anoo si fiican u sii qoslayo waxaa jira aan u isticmaalo LinkedIn profile-kayga oo saxda ah okay so waxaan sameynayaa picture-kan inaan isticmaalo hadirtan haddaan iraahdo waxaan isticmaalayaaba waxay tahay picture-kan baan isticmaalayaa hadirtan waa laga fiican yahay Mahir waa kan waa wiilkayga waaye so haddaan iraahdo marka picture-kan baan isticmaalayaa waa aniga iyo wiilkayga iskula jirna wax macno sameynaya professional maaha laakiin picture-kanu hadirtan sababtoo qof raba inuu ogaado ma jirto saad ilmahaaga u jeceshahay balse qof picture-kan waa picture professional aad uu idinkugu soo dhawaada baan u malaynayaa haddaan idinka yareeyo xoogahay picture-kanu waa picture professional ah oo u isticmaali kartid all wax alla wixii professional profile-kaaga oo dhan sidee picture-kan u soo qaadanay waxaa tegayba waxay tahay dhar fiican oo qurxoon inta soo gashato mana ahan qasab suud inaad soo gashato shaati qurxoon baa soo gashan kartaa ayaa waxaa tegi kartaa footadan kadib inta istoosiso oo kamerada toos u fiiriso ayaa waxaa dhigi kartaa iga qaad picture-ka ayaa dhigi kartaa okay waxaan sameynayaa marka inaan iraahdo add photo inaan click ku siiyo kadib aan hadirtan aan doorto meesha oo ku jiro picture-kan marka meesha oo ku jiro waxaan sameynayaa inaan toos aan u tago dan kadib aan doorto picture-kan markaan doorto ayaa waxaa la leeyahay picture-kan waxaan sameyn karaaba waxay tahay marka picture-kan hadirtan dhinacu u badan yahay hadda fiiriso wuu qaloocan yahay laakiin waxaan sameyn karaa inaan weyneeyo aan centerka ku aadiyo okay so hadirtan okay haddaan saan iraahdo hadirtan xogahay waa uu qalloocdo okay waxaan sameynayaa inaan flip aan sameyn kartaa haddaa rabto siisaan u dhaafayaa oo hadda wax yar baan dhinacan aan saan dhahayaa wax yar baan toosinaa okay waan qalloociyay markii hore markaan toosiyo haddaan rabo waxaan sameyn karaa zoom inaan ku sameyn karaa laakiin zoom inku waa already picture aad iyo aad u soo dhow waxaan sameyn karaaba waxay tahay inaan hadirtan filterka inaan hadda click ku siiyo oo picture-kii aan xogahay color-ka aan ku badiyo kaas baan ka dhigi karaa kan baan ka dhigi karaa laakiin aniga waxaan kugula talin lahaa inaan originalkiisa u dhaafto oodan waxba qurqurxinin okay waxaan sameyn karaaba waxay tahay adjustment inaan hadirtan aan inta tago haddana aan xogahay iftiinka aan ku badiyo haddaan rabo hadirtan saan ugu badiyo haddaan rabo aan ka dhimo zero hadda dhahayaa balse because ma aan rabo inaan wax ka bedelo hadda picture-kan waxaa sameyn kartaa waxay tahay contrastiga iyo saturationka ayaad ka bedeli kartaa midda ugu muhiimsan marka intaadan dhihinin save photo ayaa waxay tahay feasibility markaa click ku siiso public ayaa kuu dooran fadlan ha dooranin mid kale
haddaa hadeertaan aad doorato LinkedIn members waxaa arki karo kaliya baa waxay tahay picturekaaga qofku markuu LinkedIn log in uu yahay laakiin asagoon log in ahayn inuu profilekaaga qofku arki karo waaye dan kadib public ayaa leedahay oo qofku hadduu search hadda sameeyo Google iyo Bing iyo waa laga arki karaa picturekaaga taasaa kuu fiican sababtoo ah waa professional picturekaaga waaye waxaad sameynaysaa waxay tahay marka select inaad tiraahdo dan kadib save photo ayaa leedahay waad sugay marka ilaa intuu ka save oo ka sameynaysa u jeedo picturekii baa ii soo baxay hadda maxaa ii soo baxay marka waa Mahir Hersey and Service Desk Analyst at Hurbat Institute of Technology inuu ka yahay waxaan sameynayaa marka inaan iraahdo hadeertaan continue markaan iraahdo ayaa waxaa leeyahay LinkedIn ma rabtaa appka inaad soo dejisto mobile appka soo dejisan kartaa hadaa rabtid balse hadeertaan ma aan rabo inaan soo dejiyo oo sheekadaas inaan isku furo ma rabo balse adiga mobilekaaga ayaa ku soo dejisanay usernamekaaga iyo passwordkaaga ku gale saasaad ku helay appka oo login aad ku sameynaysaa laakiin professional profileka markaad sameynaysid inaad ka samaysid baa fiican meel browser ah okay skip ayaan leeyahay hadeertaan dan kadib waxaa la ii soo saarayaabaa waxay tahay hadeertaan kambaniyada so follow a company so hadda haddaan rabo kale hadda kasoo qaado kale inaan kambaniyada qaarkood aan follow aan sameyso Cisco oo kale hadeertaan I can follow Cisco and waxaan la socon karaaba waxay tahay hadeertaan Boris Johnson la ii soo saaray waa Prime Ministerka UK and waaba u jeedaa Prime Minister inuu yahay Virgin founder oo kale hadeertaan this guy and waxaan sameyn karaa marka qofkaan rabo inaan hadeertaan aan ama companygaan rabo aan follow dhaho sida Company oo kale sida Hurbad waan u shaqeeyaa already oo hadeertaan waxaan sameyn karaa waxay tahay Microsoft oo kale inaan follow iraahdo waxaan sameyn karaa oo kale haddaan rabo BBC News waxaan rabaan hadeertaan follow aan dhihi karaa markaan dhameeyo marka follow waxaan rabo inaan sameeyo ayaan waxaan sameynayaa finish inaan iraahdo finish markaan iraahdo ayaa waxaa ii soo baxaya LinkedIn profilekayga ayaa ii soo baxaya sidaa u jeedid marka automatically dadka waxaa kugu soo baxaya marka timelinekaaga soo gelaya wax alla wixii LinkedIn profilekaaga follow ama like aad dhahdo soo hadeerta aniga Company aan like idhi so Company ayaa like waxay saartay qofkan shahaadada soo baasay ayay like saartay so haddaan Mahir Hersey haddaan click ku siiyo hadeertaan profilekayga ayaan gelayaa sidaa u jeedid marka halkan waxaan sameyn karaaba waxay tahay inaan ka bedelo background pictureka sidee uga bedelaya okay haddaan close aan iska iraahdo waxaan sameynayaa waxay tahay add image inaan meeshaas aan ku siiyo meeshaan ay ku taalo kamerada yaro markaan click ku siiyo meeshaas ayaa waxaa leeyahay background image waa inaad aad gashataa so waxaan leeyahay edit profile background kadib waxaan dooranayaa profile background kaas ayaan dooranayaa haddaa rabto inaad ogaato size-ka profile background kaas waxaad sameyn kartaa mouse-ka hadda u dhaweeyo waxa waaye profile background kaasu waa adiga 1279 lagu dhuftay size-ka iyo dimension-kan ka hadlaya laakiin LinkedIn profile waxaad sameyn kartaa background profile-ka waxaa rabto inaad ka dhigato adigu laakiin waxaan kugula talinayaa inaad ka dhigato waxa aad markaas adigu fiilkaaga yahay hadduu fiilkaaga uu technology ka dhigo hadduu yahay shaqadaadu hadday wax kala tahay wax kala ka dhigo oo adiga fiilkaaga aad iyo aad u soo dhaweynaya marka waxaan sameynayaaba waxay tahay inaan hadeertaan taas doorto oo bin ayaan leeyahay picture qurxoon baa adigu ka dhigan kartaa kadib ayaan waxaan sameynayaaba waxay tahay waxyar hoos inta u socdo inaan apply aan iraahdo marka background imageku sidaas ayuu u qurxoonaanaya haddaad background image gelisay picturekaaga gelisay qofkii profilekaaga imaado wuu ogyahay inaad waqti waxaan gelisay si aad u noqoto qof professional background saa u jeedid marka waxaa muhiima meeshaan mu jeedaa profile strength ay ku taalo waa inaan ka dhignaa excellent meeshaan hadeertaan beginnerka waa inaan ka dhignaa excellent sidee excellent uga dhigi karnaa waa inaan buuxinaa wax alla wixii information oo dhan oo hoostaana inaan buuxino waa profilkeena waxba hadda kuma jiraan waxaa muhiim ah inay meeshaan ay excellent ku tahay sidee uga dhigi karaa excellent waa inaan ku qoraa wax alla wixii information la iga baahan yahay marka add work date hadda la yiri soo hadeertaan si aan uga dhigo excellent waa inaan hadda aan raacaa add work date so click baan ku siinayaa dan kadib waxaa leeyahay when did you start this position so waxaan leeyahay baa waxay tahay bishii waxaan bilaabay January sanadku markuu ah 2021 and date of the okay starting date okay end date I'm currently work here aan dhihi karaa sababtoo waqtigaan bilaabay iyo bishaan bilaabay ayaan u sheegayaa marka hadda ayaan aan ka shaqeeyaa meeshaan weli ayaan dhahayaa waxaan leeyahay marka add to profile ayaan leeyahay add to profile markaan iraahdo dan ayaan haddana leeyahay waxaan leeyahay guide so hadeertaan haddaa fiiriso hadeertaan beginner oo ahaa Soomaan intermediate hadda la iga dhigay meeshaas waxaan ka dhigi doonaa excellent haddana waxaa leeyahay waa inaad gelisaa education so click baan ku siinayaa waxaad soo baratay so waxaan leeyahay baa waxay tahay university baan raadi karaa so hadeertaan haddaan raadiyo simad
university oo kale hadda daan raadiyo ka soo qaado kale Maahir Simad oo dhigtaa ama wuxuu dhigtaa Hurbad University oo kale ka soo qaad waxa sameey karaa marka add to profile ina iraado university-gaaga adigu laakiin waa inaad run ka sheegtaa oo waxbarashadaada been kama sheegi kartid so hadda anigu example ahaan ayaan idin sheegaya idin tusaya maahan inaan idin tusayo as a wax oo run ahaan inaan idin tusayo marka waxaan dhigi karaa waxay tahay 2007 okay 1 2 3 4 5 okay 5 years 2019 kii baan bilaabay and 2000 waxaan dhameynayaa okay 2 okay from ila iyo 2021 okay so saddexdaas sana baan dhiganayaan leeyahay save ayaan leeyahay save markaan iraahdo waxa la what did you okay so when did you go to okay waxaan leeyahay save why u diidan yahay okay and so 2018 hadda iraahdo on save iraahdo okay when did you go to Simad okay so from okay waxaan leeyahay this ila iyo 15 kii aan dhaho save okay so skip hadda iraahdo oo iraahdo majorka muxuu ahaa waxaan leeyahay waxay tahay computer science ayaan leeyahay dan kadib waxaan sameyn karaa waxa leeyahay what degree did you get waxaan leeyahay waa B waxaan leeyahay bachelor degree okay bachelor degree dan kadib done ayaan leeyahay okay haddaan hoos socdo submission did not succeed please try again okay waa si fiican looma qaadan submission did not succeed okay iska cancel waa error kale iska ka soo saarayso add skills aan leeyahay skillska marka anigu aan hadda aan leeyahay ayaan waxaan sameynayaa add skills inaan iraahdo hadda ka soo qaado kale hoostaan baan u socon karaa ama halkaan baan ku qori karaa waxaan leeyahay waxay tahay computer networking hadda ku qortaba asaga ku dhameystiraya waxaan hadda iska cancelo adiga waxay u badan tahay inuu isku soo saari doonin okay cancel haddaan iraahdo computer networking haddaan iraahdo haddana aan iraahdo ka soo qaado kale service desk customer service oo kale a good idea and IT management service okay IT management service management waxaan dhigi karaa waxay tahay customer service and okay customer relation management okay software kaas kale waa isticmaali karaa adiga waxaad ku qoranayba waxay tahay in alla intii skills oo adiga lahaan kartid dan kadib waxaad dhigi kartaa waxay tahay server and Windows server aad dhigi kartaa Windows waxaad dhigi kartaa waxay tahay inaad kusoo shaqeyntay oo skills aad leedahay Windows 10 oo kale waxaad dhigi kartaa waxay tahay Office waa fahantaa u maleynaya Microsoft Office waxa la wixii adiga skills oo leedahay oo dhan halkan gali kartaa hadhowtadiina waa gali kartaa qasab maahan hadda add to profile leedahay dan kadib waxaa leedahay done hoos hadda waxaad u socoto hadda waa ay buuxsami rabtaa oo haddeertaan haddaad u dhaweyso waxa dhiman baa waxay tahay oo kaliya waa dhowr wax baa dhiman oo summary hadda dhiman oo kaliya marka waxaan leeyahay add summary-gan marka anigu ma aan qorayo waxaan sameynayaa waxay tahay profile-kayga runta inta tago hoos u socdo way profile-kayga runta aan iraahdo simo aan soo koobiyeynayaa intaan baan soo koobiyeynayaa haddeertaan sababtoo mar raba inaan wax qoro adigana waxaan kugula talin lahaa inaadan koobiyeynin oo adigu aad qorato adiga exactly waxa ku quseeya okay haddaan u laabto marka hadda summary-ga waxaan sameyn karaa waxay tahay inaan copy paste aan iraahdo copy paste markaan iraahdo kor haddaan waxay u socdo waxaan sameyn karaa inaan actually space-ka aan u dhaafo waxaan sameyn karaa add to profile inaan iraahdo add to profile markaan iraahdo marka all done all studies hadda la isiiyay profile-kayga haddeertaan waa professional profile guide aan leeyahay hoos baan u soconaya hoos markaan u socdo marka haddaad fiiriso haddeertaan waxa waaye experience education waxaa meeshaan ku jira baa waxay tahay endorsement iyo skills interestigayga so haddeertaan profile-kaygii ayuuba usoo ekaanayaaba saa ujeedid waxaan sameyn karaa marka inaan dhowr waxyaabood oo kale aan ku daro sida haddeertaan waxaan dhihi karaaba waxay tahay inside salary oo kale lacagta aan ku shaqeyn lahaa ama waxaasoo dhan waa raadi karaa fiira mediumku waa 90,000 information badan baa lagu sheegaa laakiin hadda informationkaas actually ma u danlayn wax kale aan raadinayo laakiin ka soco waxaan sameyn karaa marka haddeertaan experience-igo kale waxaan dhihi karaa add ayaan dhihi karaa dan kadib waxaan dhihi karaa waxay tahay shaqo aan hore uga soo shaqeeyo kale so help desk haddaan haddeertaan help desk technician haddaan hadda kor aan ka ahaan jiray full time company-ga haddeertaan haddaan ka ahaan jiray kasoo qaadoo kale la yidhaahdo abis networking oo kale hadda haddii aan dhaho
waaba jiraba Abis Collaboration ya Abis Networking oo kale waa magaciga Cabdirasaaq oo la soo gaabiyay waa Abis Networking waxaan leeyahay locationka waa London oo kale waxaan dhigi karaa currently work here TikTok baan ka qaadaya waxaan sheegayaa waxay tahay waqtiga aan u shaqeyn jiray so sanad baan iska dooranaya waxaan leeyahay 2018 ilaa iyo January 2021 ayaan dhigi karaa descriptionka halkan ku qor leedahay waxa aad ka soo shaqeyn jirto kale ama qaban jirto kale waxaan rabaan ku qoraya halkan haddii wax media ay jiraan oo file ay jiraan xagaas ma ku qoraya waxaan dhigi karaa marka save ayaan leeyahay save markaan iraahdo saa u jeedid waxa meeshan la iigu soo daraba waxay tahay gadaal waan laabanaya waxa meeshan la iigu soo daraba waxay tahay hadaan hoos socdo wax yar waxaan sameeyay inaan laba company aan u soo shaqeeyo hadana company kale hadii aad qof oo ayaan ku soo dhex jiray shaqadan hadaa tahay waxa sameyn kartaa in aad tiraahdo dan kadib hadana aad ku darto meeshan oo dhahdo first line support ama waxa dhigi kartaa waxay tahay help desk specialist magac la u bedelnay full time waxaan ka soo shaqeeyaa baa dhigi kartaa markino XYZ company la yiraahdo kadib hoos baa u soconaysaa do you choose XYZ internet no waxaan sameynayaa waxay tahay yes inaan iraahdo so I currently work here now waxaan sameynayaa January 2016 ilaa iyo January markaan dhameeyo 2018 sababtoo tii hore sida ahayd waxaan sameyn karaa marka description ka raba halkan inaan ku qoro save inaan iraahdo waa example sida shaqo loo geliyo kale aad hore uga soo shaqeysay marka waxa arkayba waxay tahay saddex hadartan ilaa iyo 2016 ki ilaa iyo 2021 ki inaan shaqo ku dhex jiray ayaa loo jeedaa so hadii company oo yimaado hadartan raba inuu shaqo aniga isiiyo experience CV-gaygii hadda dhisaya so hadda marka aad hoos u socoto waxa arki kartaa waxay tahay education waxaan sameyn karnaa plus inaan kili ku siino dan kadib halkan baa waxaan ku qori karnaa waxay tahay school kale on soo dhigan soo hadirtaan hadii aan arday aan ka nahay hurbad oo kale hadirtaan hurbad schoolka hurbad dan kadib aan next degree hadaan idhaahno waa professional certification ayaan niri study field waxaan leenahay combatia A+. So sanadka aan ka dhiganay waxa ah 2020 ayaana dhameynay grade-ka waa pass ayaan dhigi karnaa kadib activity waxa rabto inaad ku qori kartaa meeshaas kadib ayaa waxa leedahay save waxa dhigi kartaa marka meeshan waa muhiim share it on my network-ay ku share galay ama don't share it marka waxaan sameynayaa waxay tahay inaan hadda iraahdo don't share it sababtoo wax macna sameynay maahan dadka inay ogaadaan waa test profile laakiin share it ayaa dhigi kartaa dan kadib save ayaa dhigi kartaa haddaa rabto marka taas geliso ayaa waxaa sameyn kartaa inta school oo hore usoo dhigatay ama ha ahaadaan school oo primary school waa high school iyo college-ka iyo university-ga aad soo dhigatay iyo iskuullada kale oo hadeertan sida hurbad oo kale aad ka soo baratay koorsooyinka professionalka oo kale ayaa halkan geli kartaa kadib ayaa waxaad sameyn kartaa inaad more skills hadeertan aad geliso skillska marka halkan aad gelinaysid waxaad sameyn kartaa waxay tahay inaad halkan aad kili ku siiso add skills inaad kili ku siiso dan kadib waxaa lagu leeyahay ma taqaanaa waxaan dhigi karaa MCS ayaan aqaanaa waxaan dhigi karaa network engineering Microsoft products monitoring services waxaan dhigi karaa service administration Linux asaga ku sheegaya network architect CCI maaha management add ayaan leeyahay haddana fiiri markaan add iraado haddana add new skill iraado oo ii soo buuxinaya meesha haddana waxaan sameyn karaa waxay tahay marka inaan haddana aan hadirtan service desk oo kale aan haddana iraahdo iyo customer monitoring services oo kale add marka waa uu ii badanaya hadirtan submission did not succeed cilada submission did not succeed leh ma ahan wax adiga ku soo bixi doona waa aniga wax hadirtan ii gooniya waxaan sameynayaa marka less sida u jeedid marka waad buuxin kartaa skillskaaga dhan baad ku qori kartaa meeshaas waxaa kaloo sameyn kartaa waxay tahay meeshan education ay ku taalo aad waa dhigi kartaa waxaa kaloo sameyn kartaa waxay tahay section inaad profile-kaaga ku darto meeshan ugu koreysa haddaa fiiriso hadda hoos socon xogaa meeshan ugu koreysa tan hoos baan iska dhigayaa meesha ugu koreysa haddaa fiiriso add section ayaa dhigi kartaa dan maxaa rabtaa inaad hadirtan section inaad hadirtan ku darto waxaad dhigi kartaa accomplishments so publication-ka aad samaysa aniga meesha ay iga soo bixaysay hadirtan publication-ka hadda fiiri example oo kale haddaan tago profile-kaygii oo kale hadirtan accomplishment iyo publication-ka meesha iga soo bixaysay hadda
waa kana accomplishment soo hoosgale waxaad samayn kartaa sidii oo kale inaad adigu hadaad horay aad wax u soo samaysay inaad gashato meeshaas oo hadeertan aad dhahdo accomplishment marka qasab maaha inay noqoto publication waxay noqon kartaa course aad dhigatay oo kale soo hadeertan hurbada course ka qaadato kale hadeertan course ayaa kali ku siinaa course name-ka ayaad sheegayso hadeertan hurbad hadaan tagno oo aan soo qaadano hadeertan koorsada ka soo qaado kale IT fundamental baa hurbad ka samaysay koorsadan baan soo qaadanaynaa magaceeda waxaan tagaynaa profile-ka paste baan ku leeyahay course number waxaan samayn karaaba waxay tahay course number waa taas inaan hadeertan aan ku qoro meeshaas exam code-ka weeyaan course number-ku then kadib association with waxaan dhihi karaaba waxay tahay waa student at hurbadaan ka bartaan dhihi karaa then kadib laakiin waa inay kugu jiraan halkan waa inay kugu jirto already schoolku inuu kugu jira waaye kadib safe ayaan leenahay saa ujeedid marka meeshan waxaa iisoo galaba waxay tahay section kale oo accomplishment la yiraahdo oo courses waxaan samayn karaa inaan haddana ku laabto oo iraahdo course kale baan ka sameeyay hurbad waxaan dhihi karaaba waxay tahay coursedan magaceeda waxaa la yiraahdaa Competia A+ exam numberkeedu waxa waaye waa 200-101 iyo 220-1102 waxaan okay waa 002 waaye waa qalda meeshaas waxaan dhihi karaa waxay tahay waxaan ka bartay waa hurbad dan kadib safe ayaan leeyahay labadaas course baan ka soo qaataan dhihi karaa hadaa hurbad ka soo qaadatay because ardada waxaa jira qaar kood 20 course ka qaatay hurbad oo really professionals hadaa hurbad koorsooyin badan ka soo qaadatay ku tix meeshan waxay cadeynaysaa koorsada inaad soo qaadatay ayaa cadeynaysaa marka LinkedIn profile waa aad iyo aad muhiim u yahay inaad fahansan tahay in LinkedIn profile aad u baahan tahay hadaad isleedahay LinkedIn profile ma u baahnid adduunkan hadda aan ku noolnahay waxa la isku siiyo shaqo waa oo marka koowaad laga fiirinayo waa online-kana markii la sii fiirinayo lagama fiirinayo social media hayaasha kale lagama fiirinayo sababtoo ah waxa dhici karta inaadan information badan inaadan gelinin social media kale laakiin LinkedIn profile-kaaga hadaad samaysato waxa lagu arkayaa qof oo serious ah oo shaqada oo rabo inuu shaqada oo dhahayo waan aqaana yaqaan sababtoo waa qof professional ah waay marka mana ahan in LinkedIn profile-kaaga inaad hadeertan aad inta tagto home oo kale hadaan tago on rabo inaan post aan qoro kale hadeertan waan qori karaa laakiin wax oo qalad ah gelinin aniga hadeertan post hadaan rabo inaan sameeyo waxa kaliya post aan sameeyaa fiiri hadda fiirs aniga waxa kaliya postiga aan sameeynay activity-ga hadaan tagto wax kale ma aan sameeyo waxaan sameeyaa waxay tahay wax IT ku saabsan oo kaliya wax shaqadaada marka ku saabsan oo kaliya oo fool xumo ahayn markasta post inaad dhahdid waay hadii laakiin aad inta tagto aad waxyaalaha aad Facebook aad ku share gareyn lahayd aad halkan aad keento meeshaan ma ahan Facebook ogaaw ma ahan Twitter ma ahan Facebook ma ahan Snapchat ma ahan Instagram mana ahan TikTok fadlan ogaaw wax social media waxa loo isticmaalaa waa professional profile ahaan ayaa loo isticmaalaa adigana waxa lagaaga baahan yahay sidoo kale inaad u isticmaasho marka waxaan rabaa waxay tahay hal mar inaan tuso sida post loogu daro hadeertan video oo kale hadeertan hadaan tago YouTube oo kale hadaan tago YouTube okay.com on hada hurbad raadiyo hurbad okay hurbad waan tagayaa dan kadib waxa ii daarmay qaylo badan ay dhex daarmay laakiin waa iska kansalaya waxaan sameeynaa marka inaan hadeertan videogan hadeertan ka soo qaado kale kan oo kale oo aan live stream kan oo kale hadaan tago qaylo badan baa iga ag daarmaysa laakiin waxaan okay waan ka baxamiyaa hal mar baan ku laabanaya waxaan soo qaadanayaa videoga baan soo qaadanayaa okay dan kadib hadaan tago feedkayga marka oo profile-kayga aan ku laabto click hadaan halkan ku siiyo oo paste halkan ku dhaho waxaan samayn karaa waxay tahay inaan sugo wax yar video preview-ga ii soo baxaya kadib ayaa waxaan samayn karaa hadaa fiiriso videoga baa ku soo baxaya post ayaan samayn karaa post markaan sameeyay u jeedid videogi ayaa halkan ka soo baxaya hadaan rabo waxaan samayn karaa waxay tahay inaan picture aan halkan aan post aan ku iraahdo oo hadirtaan hadaan picture-kayga halkan geliyo kale laakiin waxa macna sameeynay maaha picture inaan inta iska geliso aad dhahdo jumca mubaarag oo kale fadlan taas ha sameynin waxaadan sameynin wixii aad ku samayn lahayd Facebook ha ku sameynin LinkedIn profile-kaaga waxa loogu talagalay professional profile-kaaga inuu yahay maahan inaad picture-kaaga iyo adoo wax qalad sameyn inaad soo geliso ma sababtoo ah qofka shaqada ku siinaya wuxuu fiirinayaa waxay tahay profile-kaagu sida uu yahay hadii profile-kaagu wax qalad ay iskaga jiraan wuxuu sameynayaa inuu meeshaas
oo meeshaas inaad ku shaqo weysa adigu oodan wax shaqaa lagu siinin sababtoo serious laguma qaadanayo profile-kayga baan ku laabtay haddaad rabto profile-ka inaad ku laabato picture-ka baa kili kusii kartaa kadib ayaa waxaa samayn kartaa inaad hadeertaan hoos inta waxaad u socoto aad meeshaan open to haddaa fiiriso meeshaan mar dhowta baan raadinaya open to haddaa kili ku siiso waxa waaye dadka oo hadeertaan marka haddii aad rabto dadka shaqada inay siiyaan dadka rabaan oo kambaniyada raadinaya dadka shaqaalaha ah inaad shaqo raadis tahay halkan baa uga sheegi kartaa waxaa samayn kartaa open to waxaad dhihi kartaa find a new job then kadib okay I'm open to remote work ayaa dhihi kartaa oo shaqo oo guriga anoo kasoo shaqeynayo kale waxaad dhihi kartaa waxay tahay casually browsing or immediately actively applying ayaa dhihi kartaa waxaa u sheegi kartaa full time inaa ahay flexible am casually browsing ayaa dhihi kartaa ama waxaad dhihi kartaa immediately hadda inaan bilaabaan rabaa shaqo oo qof shaqo haysta miihi waxaan dhihi karaa waxay tahay waa add to section marka haddaa fiiriso meeshaan waxaad arkayba waxay tahay LinkedIn profile-kaaga yaa rabtaa inuu arko information-kan hadirtaan inaad shaqo raadis tahay yaa rabtaa inuu arko ma waxaa rabtaaba waxay tahay dadka shaqada dadka geynayo kale recruiterska mase waxaa rabtaa inay arkaan qof waliba oo LinkedIn ku jira aniga waxaan ku talin lahaa haddaadan rabinin inuu qof waliba oo arko inaad tigta halkan saarto oo dadka waxa u soo baxee inaad shaqo raadis tahay dadka inay shaqaalaysiiyaan rabaan oo kaliya laakiin haddii aad hadirtaan open to work haddaad dhahdo tig ayaa sii kartaa halkan dan kadib LinkedIn profile-kaaga waxaaba lagugu darayaa ayaa waxay tahay calaamadaas ayaa lagugu darayaa open to work ayaa dhihi kartaa dan kadib waxaad samayn kartaa calaamadaasaa LinkedIn profile-kaaga picture-kaasaa lagu darayaa dan kadib waxaad dhihi kartaa add to profile ayaa dhihi kartaa ogow profile-kan anigu waan xiri doonaa waan canceli doonaa markaan hadda aan videogan dhameeyaba waan canceli doonaa marka maahan inaan aniga picture-kayga aan dhahayo am open to work laakiin adiga waxaa lagaaga baahan yahay waxaan kuu tusayaa section-kan baa waxay tahay inaad adigu haddaad shaqo raadis tahay inaad open to work aad dhihi kartid oo qofkii picture-kaaga arkaba oo clearly oo arki karo inaad shaqo raadis tahay maadaama toolkan loo isticmaalo inaad shaqadaada inaad hadeertaan aad professional profile ahaan inaad ku dhisato soo hadeertaan haddaa rabto inaad qof ku darto marka waxaan sameynayaa hadeertaan anigu inaan isku darsado soo hadda waxaan sameynayaa inaan Cabdirazaq professional profile-kaaga inaad dhisto waa muhiim hadda waan soo baxay saa ujeedid marka waxaan samayn karaaba waxay tahay follow inaan idhaahdo qofka Cabdirazaq Hersi okay follow markaan idhaahdo haddaan hadeertaan anigu aan tago aniga ahaanteeda haddaan tago profile-kayga oo aan dhaho network haddaan kili ku siiyo waxaan arkaaba waxay tahay in Mahir Hersi oo yiri follow so haddaan waxay sugo okay haddaan home ku laabto on notification haddaan tago okay fresh haddaan siiyo inaan aqbalaan rabay hadeertaan follow-ga laakiin follow maahan okay waxaan rabaa inaan ku daro okay connect aan rabay inaan follow waa qofkaas follow aan ku sameeyay laakiin connect ayaan leeyahay dan kadib message aan qofka u qori karaa waxaan dhihi karaa magacaygu waa hebel maadaama aan isku shaqanahay waxaan jeclaan lahaa in aan kugu darsado professional network-gayga oo add node ayaa dhihi kartaa dan kadib waxaad dhihi kartaa magacaygu adaa is sharixi kartid okay so hadda mar rabo inaan waxba qorqoro anigu send ayaan leeyahay send markaan idhaahdo haddaan hadda ku laabto marka professional profile-ka haddaan ku laabto oo aniga kaygii kan anigu aan professional aan u isticmaalo saa ujeedid Mahir Hersi follow you ayaa layiri haddaan hadda network aan tago waa kana asagiyaa igu darsaday Mahir Hersi wuu igu darsaday kadib waxaan sameynayaa accept ayaan leeyahay marka aniga waxaan kugula tali lahaa si oo indiscriminately maaragtay oonan ahayn adoon qofna fiirinaynin oonan qofna aanan dhahayn qofkaana ku darsanin marka koowaad waxaa isku daydaa inaad Soomaalida dadka ah oo professionalka ah oo dhan aad ku darsato haddaa rabto aniga waa iga bilaabi karta aniga haddaa igu darsato always dadka Soomaalida waan ka aqbalaa inkastoo dad badan oo ajnabi ay igu darsadaan oo markastana aan idhaahdo ignore aan idhaahdo balse Soomaalida dhan accept ayaan idhaahdaa okay waxyar baan hoos soconayaa haddaan hadda aan profile-kayga aan ka baxo professionalka ah profile-kayga okay gadaal baan u laabanay kaygii maan galay okay waa kana saa ujeedid haddaa fiiriso profile-kayga professional xataa magacayga sida loogu dhawaaqo ayaa meesha ku jirta oo English ahaan sida loogu dhawaaqo Soomaali ahaan waan naqaanaa laakiin dadku magacaaga kuma dhawaaqayaan marka qofka employee-ga markuu ku soo wacayo ayaa loo baahan yahay in magacaaga in lagu dhawaaqi karo inaad adigu u sahasho oo mobile-kaaga aad ka samayn kartaa hadda login dhahdo waxa lagu weydiinayaa magacaaga sida loogu dhawaaqo noo sheeg oo hadeertaan anigu exactly mida hadda idin tusi kara ma okay so haddaan iska xiro haddaan click ku siiyo mo waxaan samayn karaaba waxay tahay inaan idhaahdo build a resume
oo halkan waxaana halkan geliyay CV iga sameeyaan dhihi karaa hadaan rabo waxaan rabaa marka inaan tuso sida loo bedelo hadirtaan tan sababtoo qasab maaha meesha aad ka shaqeyso iyo shaqadaada inaad meeshaas aad ku qorto inaad certification-kaaga meeshan aad ku qorto waxa aad tahay ayaa lagu qoraa meeshan waxa hobbigaaga ayaa lagu qoraa waxa aad jeceshahay ayaa lagu qoraa soo hadirtaan hadaan iraahdo edit hadaan iraahdo oo Flartas aan click ku siiyo waxa arkayba waxay tahay inaan profile-kayga sana aan editing aan ku sameyn karo soo hadaan wax hoos aan u socdo away headline marka waxaan sameyn karaaba waxay tahay hadda aniga fiiri example oo kale hadaan tago LinkedIn profile-kayga oo home aan tago oo aan sii tago maxaa dhacay okay something went wrong go to my feed okay and Abdirazak Hirsi aan tago headline-kayga haddaa fiiriso waa CEO Forbes shaqadeeda waaye laakiin maxaa sii raacsan entrepreneur teacher author community builder technologist okay aniga ahaanteeda midda aan ugu jeclahay ayaa waxay tahay technologist qofku technologist markuu yahay waxa laga wadaaba waxay tahay wax kasta oo technology ayuu jecel yahay maahan oo kaliya hal shay inuu ugu baxdo okay waxaan sameeynaa technologist iyo inaan ahay qof oo ah okay waxaan dhigi karaa oo kale ba waxay tahay community builder oo kale ayaan dhigi karaa waxaan qoran karaa fadlan ha koobiyeynin qof balse adigu waxaad qorataa wax adiga kali ku ah qoro waxaan sameynayaa marka inaan iraahdo hadirtaan safe inaan iraahdo marka hadda waxa isbedelaya waxay tahay waxa isbedelaya waa title-kii meesha igu qornaa haddii aad rabto waa u dhaafan kartaa shaqadaada laakiin aniga waxaan kuula tali lahaa inaad ka dhigato title wax adiga macna kuu sameeyo aniga example ahaan waxaan ka soo koobiyay un profile-kayga kale because aniga macna ahaan waxa ii sameynaya profile-kayga sida aan ugu qortay ayaa macna ahaan ii sameynaysa laakiin adiga waa inay waxa ku qoranaysid meeshan inay macna ku sameynaysa waaye ayna tahay wax ku salaysan runta hadaa hadirtaan contact info hadaan kali ku siiyo waxa arkayba waxay tahay Abdirazak Hirsi profile-kaaga iyo email-kaaga ayaa arkay Abdirazak Hirsi waa Mahir Hirsi Abdirazak Hirsi waa Mahir Hirsi so email-kaaga hadaa fiiriso waxa ku qoran ba waxay tahay email-kii waxaan sameyn karaa marka contact information-ka inaan badiyo ayaan sameyn karaa oo hadirtaan hadaan tago meeshan ay ku taalo icon-kaas yarka ah oo kale waxaan sameyn karaa waxay tahay account-kayga inaan inta sii dhex galo aan information aad iyo aad u badan aan ka bedelo ana ku daro markaan ku daray marka setting baan tagi karaa dan kadib waxaan ku dari karaa accept cookies baan leeyahay waxaan aan bedeli karaa waxay tahay setting-ka aan rabo waxaan sameynayaa marka taas inaan adiga ku dhaafo sababtoo ah tan waa mid adiga gooni ku ahayba noqonaysa waxbana ha ka cabsanin wax kasta waa inaad bedeli kartaa dan kadib haddaad u bagi weyso sideedii hore ku soo celi oo ha ka walwalin taas okay maxaa kaloo dhiman hadaan hoos socdo waxa leeyahay waxay tahay stand out recruiters waxaad sameysaa hadaa tahay qof yaqaan waxa aad tiri waan aqaana hoostan hoose fiiri waxaana tiri waa aqaana Soomahan skillska waxaad sameyn kartaa inaad qaadato imtixaan yar inaad iska qaado take a quiz skill dan kadib waxaad dhigi kartaa okay maxaa rabtaa inaad qaadato waxaan dhigi karaa waxay tahay Windows Server dan kadib waxa lagu leeyahay 15 multiple choice questions 1.5 minute per question ayaa lagaaga baahan inaad ka jawaabto ma rabtaa dan kadib waxa leedahay start ayaa leedahay dan kadib sidaas ayaad imtixaankaas yar ku gali kartaa dan kadib waxay cadeynayaan LinkedIn u cadeynayba waxay tahay inaad tahay qof yaqaana waxa aad tiri waan aqaana waxay u sahlay marka dadka raba inay shaqaale inay ka dhigan adiga ay ku shaqo galiyaan ay u cadeynayaan inaad taqaano marka waad dooran kartaa oo exactly waad sameyn kartaa hadda fiiriso laba qofooda already waxay fiirisay waxa aan soo dhigaa laba qofooda already ay aragtay waana profile anigu aan fake iskaga sameystay waaye oonan cidna aanan ku darsanin marka hadda fiiriso hadirtaan meeshan oo my network hadda click ku siiyo waxa arkayba waxay tahay inaan Abdirazak Hirsi inuu igu jiro connections hal qof meeshan igu jira laakiin hadii aan rabo inaan ku darsado connection badan waa inaan ku darsadaa markii la aqbalo ay inta iga soo baxayaan marka waxaad sameyn kartaa waxay tahay inaad ka faa'iideysato professional profile-ka maanta wuxuu leeyahay something went wrong marka ma ahan cilad adiga ku soo bixi doonta waa mid aniga local ah midaaso saa u jeedid markaan feedskayga markaan tagay waxa ii soo baxay waxa aan anigu aan Abdirazak Hirsi waxa uu soo galiyay Abdirazak Hirsi maadaama aan ku xiranahay profile-kiisa ayaa waxa ii soo baxaya waxa uu soo galiyay waxaan sameyn karaa waxay tahay inaan comment aan ka bixiyo inaan like iraahdo inaan waxaan sameyn karaa waxay tahay aan comment inta kali ku siiyo aan halkan aan qoro inaan share inaan iraahdaan sameyn karaa oo share hadaan hadda kali ku siiyo waxaan sameyn karaa waxay tahay amazing course inaan iraahdo ama waa course wanaagsan ayaan dhigi karaa waxaan dhigi karaa post
waxaa soo baxaya baa waxay tahay marka inaan anigu post aan sameeyay haddaan hadirtaan refresh aan idhaahdo waxaan baan sugayaa gadaal haddaan uga laabto okay gadaal haddaan hadda refresh aan idhaahdo profilekan isku qalday marka hoos inaan iska dhiga waayo kan saws ii qaldin mar dambe waxaan sameynayaa marka hadda fiiriso Cabdirasaaq Hirsi waxaanu soo dhigay because asaga kaliya ku xiranahay Cabdirasaaq Hirsi sidaa darteed ayuu wax badan oo Cabdirasaaq Hirsi ay ii soo baxayaan marka LinkedIn profile-ka sida loo sameeyo sidaas waaye waxaana filayaa anay adigu hadirtan si fiican inaan conceptigan iyo LinkedIn profile generally waxa uu yahay iyo sida loo sameeyo inaan iskula fahnay wassalamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh